hadallada ku habboon qalbiga ruuxa sida dhabtaadu jeceshahay. 1 waa in ay noqdaan mid markii aad u sheegto farxad gelinayo. 2 waa in aad ku ammaantaa suuradiisa ama dabeecadiisa. 3 waa in aad u samaysaa erayo macaan sida geeraarka ama baraamburka ama heeso. 4 waxaad joogtaydaa wicitaanka iyo ka warqabka. 5 kulan waliba oo aad la yeelato waxaad soo xirataa sad qurxoon iyo barafuun udagiisa xiise geliyo. 6 ka fogow hadallada xanafta leh iyo in aad baadho sirtiisa khaaska ah. 7 u muuji kalsooni baaxad weyn. 8 ballanta waqtigeeda adkay. 9 haddii qalad uu kaa galo u sheeg in aad cafisay kana codso inuu mar kale uu kaa gelin qalad la mid ah. 10 wanaaji ehelkiisa, waalid iyo walaal la saaxiib ruuxa ku dhow si uu ku ammaano. 11 haddaba ha noqon mid si qalad ah u isticmaalo tilmaamaha aan kuu sheegay, kana fogow in aad ku dhaawacdo qalbi daacad ah. 12 la soo xiriir Caashiq Bila Media, asaga wixii tafaasiil dheeraad ah kuu sheegi doono insha Allah.